السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونكسن كسود وهذا مقال عصب. ليونان أندرس ميسي وحاول شيء أفريلاتنكي تون وسجال بقول تدبيس تيتنكي واحد فضله كحيل دير كبدا عكتا أورير أرجنتينا أو كعيارة إن عويركا وهنا كابتنوي هاي لبدا كوحد رير إسبانيا بارسلونا يحول كيس قرنكا يا أرجنتين. هذا يجري وحلو تحكيليا inuu yahay ciyaaryahanka ugu fiican adduunka isla markaana si weyn loogu tixgeliyo inuu yahay mid ka mid ah ciyaartoyda abid ugu fiican ee soo mara dunida amba mucjisooyinka kubadda cagta ee qarnigan aynu ku jirno. 6 jeer abaalmarinta Ballon d'Or Awards loo yaqaano 6 jeerna wuxuu ku guuleystay kabaha dahabka ee la siiyo sanadkii ninka ugu goolasha badan qaaradda Yurub amba horyaalka Championka amba horyaalada qaaraddaas Yurub. wuxuu xirfadiisa ciyaareed oo dhan ku qaatay kooxda Barcelona halkaasuu kula guuleystay 3 koob oo ay ku jiraan 10 horyaalka La Liga iyo 4 Champion 6 Copa del Rey amba koobka boqoradda. waa gooldhaliye muhiim u ah kooxda uu ciyaaro iyo kubad sameeye. sidoo kale Messi ayaa haysta rikoodho badan goolasha ugu badan La Liga 444 gool wax ka badan ayuu ka dhaliyay horyaalka dalkaasi ee La Liga Hispania. isugeyn Messi waxa uu dhaliyay kubadda intuu ciyaarayay gool uu koox u dhaliyay iyo ka qolkiisa qarankaba 700 goolal gaaraya ayuu dhaliyay. haddaba maalmaha waxaan arkay taageerayaasha kooxda Barcelona oo odhanaya Messi way ka dhamaatay. maxay filayeen ma inuu weligii dhalinyaro ahaanayo? Messi waa soo qabtay wax walba oo kubadda cagta laga sameeyo ayay ila tahay aniga. canaana kuma laha ayaa la odhan karaa inuu hoos u dhaco. anigu Messi ma taageero kooxda uu ciyaarana ma taageero, laakiin waxaan hubaa inuu ahaa nin Ilaahay hibo u siiyey kubadda cagta garna uu leeyahay imika inuu kubaddiisu isdhinto. khabiirada kubadda cagta ayaa imika kula talinaya Messi inuu iskaga tago kooxda Barcelona sida ayaa isaga u wanaagsan mustaqbalkiisa ay leeyihiin khabiirada ka faallooda kubadda cagta. inkastoo wararka qaarna ay sheegayaan inuu Messi ka dalbaday kooxdiisa inuu iskaga tago.